واتي خيارته هودا نغلا سوcotaay halkaan naga dhigeysanaysaan oo studio idaacada hadaf habeen wanaagsan dhageystayaal waa habeenimo khamiis ah saacadu waa 8 habeen waliba xilligan oo kale waxaan hawada idin soo marnaa dhageystayaal qayb kamid ah barnaamijyada arrimaha bulshada ee ka baxay idaacada hadaf habeen waliba oo khamiis ana xilligan oo kale waxaad dhageystaan barnaamij si gaar ah ugu saabsan barnaamijka caafimaadka dhageystayaal waxaad dhageysateen aan idin soo gudbinay asbuucyadii la soo dhaafay wareysi aan la yeelanay Dr. Jaamac Abdullaahi Ilaalo Jecel oo ah dhakhtar si dabiici ah wuxuu daweeyaa dadkana ku daweeyaa dawo dabiici ah ama dawo Soomaali ah ama dawada dhirta ee runtii dad badan ayaa feedback ama jawaab celin ka soo sameeyay wareysiga dhakhtarka waxna ka gartay sidoo kale asbuucan waxaan idin haynaa dad fara badan oo kamid ah dadka uu dhakhtar ku daweeyay isla markaana ku daweeyay dawo Soomaaliga si la sheegi karo ama si macna lehna uga caafimaday dadkaasi insha Allah taala goor ayaad maqli doontaan balse waxaan ku hormarayaa warsamo Jaamac gaab oo kamid ah odayaasha deegaanka ee runtiina dawo ka qaatay Dr. Jaamac Abdullaahi kuna caafimaday sida uu sheegay marka hore warsamo ku soo dhow studio-ga idaacada hadaf bismillaahir rahmaanir rahiim arintaas waxay ahayd arin yaab loo soo madhay waxaan ahaa nin xanuunsan oo farmasheeyaalka iyo isbitaalada ku wareegay xanuunkiisuna muddo badan ahaa waxaan ahaa nin qalalay oo jirkiisu qalalay oo maaragtay uu fogaaday ilaahay baa ii keenay maalmaha kamida jaamaca waan is wareysanay way salaanay awal baan isnaqin wuxuu yiri warniyow daawaan hayaa aad ku reysanayso daawadii wuu isiiyay maalintii ugu horeysay oo aan cabay shaablaan muggeed baan cabay oo anigu aan qastay shaablaantii markaan cabay horta qabowba ay galay jir kulligay qabowba ay galay dhamaantay qabowba ay galay 15 bari markii aan cabayna sar haragaygii iyo seedihii iyo laftii isku dhagtay baa kala kacay nin dhalaalahayo oo xoog leh oo maaragtay adeegi karo shaqeyn karo wax qaban karaan ku soo noqday warsamaan ka dhaxgal waa maasan tahay marka hore muxuu ahaa xanuunka aad ka cabanaysid oo aad ka daaweynay Dr. Jaamac waxa la oran jiray waxaad qabtaa tifo waxaad qabtaa gaas waxaad qabtaa burseel waxaad qabtaa hadii la ku waxay xanuuno caynkaas baa lagu sheegi jiray oo maaragtay aan kaniin iska cuni jiray kaniin baa la siin jiray kaniin baan cuni jiray xanuunkaygu marka wuu fogaaday waan tamar yareeyay markii aan maalintii ugu horeysay cabay qabow baa ay galay jirkayga dabkii hurahayay baa yaa qabow ku dhacay arintaas markaan 15 casho wadayna nolol weyn baa ay soo gashay nolol weyn ilaahay baa nolosha iska leh wix sartaydii isku dhagtay iyo haragii iyo seedihii iyo qaleylkii baan ka soo noqday waan dhalaalay sartii baa soo kacday nolol weyn baan helay soddon bari markaan cabahayna waagaan 18 ka jiray sidaan ahaa baan ku soo noqday ilaa wax yar ma ahaane marka haddana waan caafimaad qabaa oo xanuunadii oo dhan waan ka ladnahay waa gartay warsame xanuunada aad ka cabanaysay daawada dhakhtarku inta uu ku siin maxaa ugu halis badnaa xanuun ama laba ka tilmaami kartaa waxa ugu halis badnaa cunada yaan markaan cuno xanuun weyn ee qaban jiray waxa la oran jiray waa gaas caanaha geelo aan ka korba u soo noqon jireen caanaha geela markaas haddaan la lisin markaan cabo caloosha korba u soo noqon jireen ilaa 5 saac ilaa 4 saac baan higoon jiray oo hadba soo daaci jiray oo dhuunta imaan jireen wax caanaha geela ka fududina ma jiraan marka xanuunada caynkaas ah kamid ahaa hilibka riyaha haddaan cuno waaba ibreebay ahayd haddaan mar goosto beerka sidoo kale ma taqaana wixii dufan la sidoo kale xanuunkaygu wuxuu ahaa xanuun aad u badan oo aan ku fogeeyay buu ahaa aad baa rajadaydu aysan u fiicnayn waqtigaas haddana rajadaydu waa 100% marka sidaas bay ahayd waxayna ahayd dawo anigu aan qasanahay oo aan khiyaar u leeyahay oo ma taqaana anigu aan qasanayo gram baa la siiyay gramkaas qasaa la yiri 24 saac intaas cab marka sidaas ay ahayd waa gartay insha Allah way dawadaasi ma insha Allah way haddana hadii Allah idmo haddana waxaan dadka kula talinayaa dadka waaweyn bal horta ha isticmaaleen dadka waaweyn ha isticmaaleen anigu 70 jir baan waa gartay guud ahaan dawadaas intee maalmood baa hadda isticmaalaysa waxaan isticmaalahay 30 casho baan isticmaalahay maxaa ku haray kuurada dhakhtarku ku qoray maxaa ku haray asagu wuxuu ii qoray 60
لحدا بو يقري لحدا بو يقري عشو ها لحدا عشو بو يقري لما بلود بو يقري سو marka anigu waa 30 baan isticmaalay masleedahay 30 kaas way kugu filan tahay mise waad dhamaysanaysaa koorada inta ka hartay waan dhamaysanayaa hadii ilaahay idmo kolley waa ku darsanayaa inta kalena lixdan ka waa isticmaalaya waa maasantahay warsama waxa jira dad fara badan oo dhakhtarku daweeyay oo sidaadoo kale insha Allah taala waraysi aan la yeelan doono taas mid lamid ah waxa jira dad fara badan oo xanuunada aad ka cabanayso iyo kuwa ka sii daran oo ka halis badan ka cabanaya isla markaana aan aamini karinin ama kalsooni buuxda aan ka haysanin dawada dhakhtarka maadaama dawada Soomaaliga ay tahay dawo dhir laga sameeyay dadkaas marka kalsooni darradu laga yaabo inay celcelinayso xanuunka xoog badan ee aad sheegtay iyo kuwa kalena hayaan maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa bal horta habro weeyeen dhakhtarka ha u yimaadeen dawada habro weeyeen mar kaliya ha cabeen mar kaliya hal mar waxba yeeli mayso shaablaanta jiimada ah kharaar ma leh macaan ma aha kulayl ma aha hal mar qofkii cabba hal mar waxbuu dareemayaa weyn hal mar marka waxba ma aha waa qaadada bariiska mugeed marka bal waxaan leeyahay habayay ku fogaane hal mar ma cabeen hal mar markaas bay dareemayaan jirkooda dhan qabow baa galaya jirkooda dhan qabow baa galaya istirax baa galaya waaba seexanaya qofku dhag ما شاء الله أدو ما سنت waa tahay dhageystayaal sidoo kale waxa kamid ah dadka ku dawoobay dawo aw siiyay ama dawada Dr. Jaamac Abdullaahi Ilaalo Jecel oo ka shaqeeya ama dadka ku daweeya hab dabiici ah dawada dhirta waxa kamid ah dadka aw daawooyinka siiyay isla markaana sida weyn ugu caafimaaday Cabdirasaaq Faarax Nuux oo kamid ah odayaasha deegaanka Cabdirasaaq waxaan wareysanay runtii odayaal fara badan oo ka horeeya ragna waa ka dambeyn doona waxaan ugu maqaalo ah inaad ku caafimaaday ilaahay fadligiisa ka bacdi dawo aw ku siiyay Dr. Jaamac Abdullaahi Ilaalo Jecel marka bal dawada iyo siday ahayd faahfaahin naga sii bismillaahir rahmaanir rahiim warta dawada tan waxa weeye anigu waan xanuunsanaa caafimaadkana ilaahay baa baxsha qofku wuu ku caafimaadi karaa dawo ilaahay qof u soo saaro uu ku caafimaadi karaa in la amro ma qasab inaad dawada ku caafimaadaysid in aad ku caafimaadayna in la amro ma waxa weeye marka dawada tan anigu waxaan qabay gaas baan qabay waxaan qabay rheumatism lafa xanuun anigu bil baan qaadanay daawadaas ilaahay casiisa caafimaad wanaagsan buu iga siiyay oo aan isleeyahay sidii hore aad iyo aad baad uga caafimaad badanta waa maasantahay waxaad sheegtay inaad qabtay gaas iyo rheumatism runtii waa xanuuno culculus marka ma jireen dawooyin hore oo dawooyinka caadiga ah oo dhaqaatiirtu ay bixiyaan oo aad qaadatay joogta mar kuwaas u qaadan jiray waxa weeye kaniinka aad la yiraahdo bahalka gaaska nooc kasta awood kasta ha yeeshee maalin ma baqalayn jirin maalin 3 xabba 4 xabba la jiray sidaan u cunayna waxa weeye daawada aanu qaatayna dib dambe aanu uma qaadan haddana waxa laga joogaa malaynayaa muddo hal sano ku dhow waa gartay waxaad sheegtay daawada Dr. Jaamac inaad qaadatay muddo bil ah kurada uu ku qoray ma bishaas bay ahayd mise waxba ku harsan ما كورة يقرأ بالشاس هيد إلى هنا عفاد وقصي هذا وحنا نقول ما قرنا بصوبته عفاد وحنا واهر إلى هنا ويقبل وما صنطي واحد شيله ضد فربضان أو رنتي داوين كقطع Dr. Jaamac وكعاف ما هذا سيد الشيختي دنك كلا واحد شيله ضد أيقونا حنونه فربضان كعبنا يو هيان إسلام كان كلسوني درو كبقية أما كلسوني درو أي كاس داودا ما دام أي تهي داود درقة oo dhirta dad fara badan ay sheegan miisaankeeda in la qiyaas karin marka dadkaas ka cabsanaya inay daawada ku waxyeeloobaan maxaad kula talin lahayd daawadaas xaqiiqo waxa anigu aan wax fakti inay salahayn daawo fudud inay tahay oo wax fakti badan marka aan u kitaabiyay hatta waxa weeye xaaskayga waa uga qaaday soo ma garan wax fakti malab daawadaas kuma arag una malayn maayo inay leedahay daawada waxa ka effect badan midaan hadda chemicalka la isku daro ka effect badan sababtoo ama qabashay keenta ama qofka waxa way aajis baa ku keenta tan waa caadi biyo sharaab caadi ah abaysid weeye wax effect yar kuma haba yaraatay waa gartay adigoo heli kara inaad tagtid dhakhtar oo iska baartid dhiig oo dawooyin dhakhtar ku qoray aad qaadatid maxaa kugu dhaliyay inaad qaadato dawooyin dawo Soomaaliya ama geeda ah هذا waxa igu dhaliyay taas waxa weeye mutaqaadirta waa isku soo daalaan aad baan muddo dabada ka wadi meel badan baantay boosaasan tagay
قال حيان وتجي أنت أنا دور وامري تغذية شوكة ويسارقني وح إلهي داود أن تقعد أنا قرش يبحث وحبا عافاتك يمهلين لكن إلهي قف ما بكو عافات شاء عافات كان السجالة هذا وحوي واجهنا وحوي جاسكي ودتك وحنا هوس قال حتى توبا دون تلا يجري تاني اسبتال وين تغير توبا دون تلا يجري وح هذا أن كهري وهذا أن لو أكو عفاد كنا ما بتشرين به صوبت وحوي شركة حتى برا يمركوا هراء سان داود قط بركة وقرعي الدواء جدا هذا عادي بقى منسكاه بقى داود ما تبدأ ما قادم أنا يدي أهين داود قاصد ما بقادم سيدي بان وتنسل هاتنا والله أضن فعلا وما صنتهاي هذي كل سو xiriiraan ama ay kula sheekaystaan dad runtii xanuuna kala duwan ka cabanaya dhakhtarku xanuunada uu daweeyo maxaa ka go'an intee leeg ayaad ka haysataa ama dadka aad u tilmaami lahayd والله waxaan filayaa daawo shaqeynaysa inay tahay waliba si u shaqeynaysa wanaagsan baan filayaa aad u mahadsan tahay dhageystayaal waxa uu ahaa cabdisaaq faarax nuux oo kamid ah dad fara badan oo dawoyin doctor Jaamac Cabdullaahi Ilaalo Jecel doctor Jaamac barile wuxuu ka cabanayay cabdisaaq sida uu sheegay markii hore cudurka gaaska oo muddo fara badan hayay meelo badan uu tagay runtii kharash badan uga baxay haddana waxa uu sheegay in uu uga buskooday xanuunkaas gaaska daawadii doctor Jaamac Cabdullaahi Ilaalo Jecel cabdisaaq aad u mahadsan tahay ka soo qaybgalka barnaamijka waa mahadsan dhageystayaal wali waxaan dhexda uga jirnaa waraysigii aan la yeelanay dad fara badan oo kamid ah dadka deegaanka oo ku caafimaaday daawo uu siiyay doctor Jaamac Cabdullaahi Ilaalo Jecel oo kamid ah dhakhaatiirta runtii deegaanka aad looga yaqaan isla markaana ah dhakhtar si dabiici ah wax u daweeya waxa kamid ah dadka dhakhtarku daweeyay isla markaana ka qaatay daawada gaaska kuna caafimaaday doctor Waxuu ku soo barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa idaacadda hadaf oo bulshada guldago aan isleey waa deeqday iyo nawaaxigeeda waxaan kaloo salaamayaa inta codka ay maqlayso reer guldago ninba wuxuu ku maahmaahay ninba wuxuu jeclaysaa inuu shaqeysto markaas wuxuu yiri xadka qabada niman baa ku too soo xaqabsaday niman baa xariyaha dheerka dhiga xananka toomaade niman baa xabaalaha qodo soo xaqabsaday ninbu weeninayo xasan oo xasuus kugu diray walad xumaadaay ninku inuu shaqeysto oo damiir leeyahay oo sumcad fiican leeyahay nin muslima oo tukanaya oo islaana oo rasuulku sallallahu alayhi dhirtu dad ku daaweyn jiray ku daaweynaya baan anigu u arkaa inuu yahay dhakhtarka kani maalin maalmaha kamid ah anoo MCH ka jooga ninkan dhakhtarka Jaamac Cabdullaahi waa dadka MCH ka ku soo xira dadka isagoo gabdhaha xanuunsan wada buu MCH ka noogu yimid gabdhahaasna waxay ka cabanayeen in dhiigga laga cabiro in HB ga laga fiiriyo in yaruunada igfashin laga baaro mar walba dad buu keen jiray anigu qaasad ahaan Jaamac ahaan uma aqoonin inuu reer deegaan Galdogob yahay maalin maalmaha kamid markaan arkay dhakhtarkan mar walba dadka keenaya baan waxaan oo wiilka kale reer Galdogob baa markaas soo la yiri Jaamac baa la dhahayo waa nin dhakhtar ah ninka kan dadku dhirtu ku daaweeya waxaan ku yiri maalin labaad oo dad wada iibin Jaamac dhir baa dadku ku daaweysan toreys haab uu yiri meeshaadana waan jecelahay muuqinana waan jecelahay dhaqadirta waan taageeraa Jaamac qalbi furan iyo wanaagii oo dadka badan ku keenay aanu aragnay waxaan ku yiri Jaamac aad baan u xanuunsanahay dawadii gaaskana waxa iga tirooday gaaska maxaa u haysaa Jaamac wuxuu ii keenay dhir 6 ku jida 30 bacood wuxuu yiri wuxuu magacaaga iyo wax qabadka bulshada reer Galdogob u qabata awadeed alaabtaan isku soo jeegaray wax lacag ma ahan buu yiri Ramadaan baa soo galayo waxaan isla ama Ramadaanka calfan weydaa dadkuna waad ogtiin bisha Ramadaan markay soo gal dadku waa inta badan waa dhimataa qofka markuu xanuun badan isku arko qof weyn oo sidoo kale yahay dhimasho isu galaadiya anigu runtii dhimasho isu galaadiyay qof adagna waan hayo waan shaqeysanayo ma aan fariisanin Jaamac waxaan leeyahay isaga waalidiintiis Allah ka abaal mariyo daawadii waan kariyay waan kala miiray waan qiyaastu ii sheegana waan ku dawoobay waxaan aaminay muslima oo tukanaya oo islaana oo sharaf iyo sumcad ka muuqato inuu Jaamac yahay bismillaahi baan dawadii iri waan ku biskoodo waxa laga yaabaa in bulshadu tiraahdo iyadoo maanta dhakhtarada waxa dadku go'aaminaysaa garaanka aniga bisinka ay ah dawada garaankeedu waa bisinka gaaskiina waa iga suuray qof kastana waxaan leeyahay dawada gaasku waa daawo dawadan hadda dabiiciga ah oo la soo sameeyo oo dawlado badan soo jeegarayeen daawo fiican ah oo iyadana waa fiicanta laakiin daawada dhirta anu dadka aaminsan baan ku jira inay wanaagsan tahay inay daawo tahay dhakhtarkana waxaan leeyahay ilaahay noo ka keenaa mahad iskale daawo wanaagsan weeye dad badan oo babasiir aan u tilmaamay baan arkay oo yiri waa ku biskoonay dad badan oo gaaska ka biskoodan arkay saacadan la ila jooga laba gabdhood baa ila joogto asaga googoobaysay oo ku faraxsan jaahis inay aragto
هدف وان سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام دكتوريسو سؤالين يا رب أنا كويدي waxaa jira dad fara badan oo kamid ah dadka deegaanka oo qaba xanuuno fara badan oo kamid ah xanuunada dhakhtarku uu daweeyo iyo xanuunka aad ka dawooday oo gaaska dadkaasi in badan waxay walaac ka muujiyaan kalsooni darro ay ka qabaan dawada geedaha tusaale ahaan miisaanka dawada ma aamini karno iyo wixii la mid ah marka dadka noocaas ah maadaama aad kamid tahay dadka ay ku daweeyay dawada oo dadka kalsooni darrada ka qaba dawada maxaad kula talin lahayd dawada horta wax walba dawo waa dawo ilaahay cudurna sidiisaba calool buu galaa haddii dawada caloosha loo isticmaalay oo hadda dawadan gaaska aniga gaaska waa cudur caloosha ka falma Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa cudur caloosha ka askuma marka dawada anigu waxaan kula talin lahaa bulshada dhageysanaysa dawadani inay tahay dawo laga soo shaqeeyay oo ninkan khibrad u yeeshay khibradeedana ku miisaaman wax kastana bismillaah bakrinin muslim ah oo sunnadii salaada ka muuqato oo shaqeynaya oo community wax u kordhinaya way jaamac marka daawadan waxaan leeyahay waa daawo wanaagsan oo tayo leh oo fiican asxaabtii baan isku daaweyn jiray waanan aaminsanahay waan ku dawoobaysan insha Allah wacyigelin horta cidna uga ma baahna ilaahay baa wacyigeliyay qofku markuu diin leeyahay iimaan leeyahay sunnadii rasuulka muuqato uu tukanayo khibradna u leeyahay waxa iska wacyigelsan yahay oo qof walba gogoobaya dawadii arkay laakiin waxaan leeyahay qof kaas sharafta iyo sumcadda bulshada u soo jiidaya yaan laga daba qaadanino ma shaqaysto darbi jiifa yuu ka daba qaadin hal soo dhaweeyay ninna ma barayo bal fiiri leeyla calaawa hadda ku socdaa والحمد لله بلشدي يا سمعديسي يا أنا قاعد أمور كافينيا ما أنتوا يسوكر مرابا شن لح قبوا إيقاظا هدوسن أقوان لهين هدوسن حرفض لهين هدوسن كرتوق وش غيظ لهين ميو ما أنت هير كإجارسين لها كاريجا أنت در كسي حدا قبل ضير تكال إيقاظ قبل داسا بوسكي محاولة كاريجا نوع يو أنت استبرت إسكاب حين كرين كاريجا كان داود النصي وحوي وحس وحرفض يا أقوان داود وبسم الله وانا داو aad iyo aad u mahadsantahay doctorayso xawo xuray oo kamid ah hooyooyinka degmada Galdigob isla markaana goob weyn oo caafimaad oo MCH ah ku leh degmada Galdigob waxay nooga warramaysay daawo uu siiyay Dr. Jaamac Abdullaahi Ilaalo Jecel oo kamid ah dhakhaatiirta ka howlgashay deegaanka isla markaana ah dhakhtar wuxuu daweeyay hab dabiici ah dawadaas oo uu siiyay dhakhtarada ama doctorayso xawo oo ka cabanaysay xanuunka gaaska oo ay ka bogsatay intaasna dhageystayaal waxaan ku dhaafinaa barnaamijka caafimaadka ee caawa si toosan waxaad ugala socoteen stuudiyaha idaacadda hadaf waxaan idin soo taminayay in la socodsiinaya anigoo ah Ciise Xasan Ciise waxaan u mahadcelinayaa dhammaan intii barnaamijka nagala soo qayb gashay sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa dhageystayaasha waqtigooda qaaliga ah si dhageysiga barnaamijkan aad iyo aad baad u mahadsantahay dhammaantiin dhageystayaal barnaamijkan lamid ah inta kulmaynana waa Ciise Xasan Ciise oo caawa barnaamijka idaacadda idin la socodsiinayo idin leh habeen wanaagsan